daawadayaal halkani waa Faras TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyiga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu muhiimsan. qodobada wararka aan idin haynana waxaa ka mid ah Mustafa Cagjar oo ku calaacanaya shacabka qowmiyadda Tigreega ka soo jeeda ee ku nool caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga. ciidamada Tigreega oo dagaalo dhan walba kaga qaaday axmaaradii kibirsanayd iyo dagasyoonkii TPLF oo hanjabaadii ugu kululayd abid hanjabay. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe sar channelka gambaleelka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya. like sar videoga oo share dheh si aad ula wadaagto asxaabtaada. wixii tala bixinahna xagga hoose nagu reeb. ku soo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Marwe Yusuf. Mustafa Cagjar ayaa kulan la yeeshay shacabka qowmiyadda Tigreega ee degan magaalada caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga, isagoo ku beer la xawsanaya inuu si fiican ula dhaqmay intuu xilka joogay, iyadoo la wada og yahay inuu meel walba oo deegaanka ka mid ah oo ay joogeen qowmiyaddaasi uu ku xidhay kuna ugaarsanayay. waxaana tusaale kugu filan inuu 410 ka mid ah shacabka qowmiyadda Tigreega oo ku xidhay magaalada Qowdahar welina ku xidhan yihiin oo ay waqti xaadirkan ku jiraan macadka maareynta ee magaalada Qowdahar, isagoo isaga soo ururiyay dhammaan deegaanka. waxaa kaloo iyaduna xusid mudan in 309 xubnood oo ka mid ah militariga Itoobiya oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigreey ay ku xidhan yihiin xerada garab case ee ciidanka ee magaalada Jigjiga. nafla caaridnimada Mustafa Cagjar ayaa waxay maraysaa inuu maanta isugu yeedho wixii Tigree ahaa ee deganaa Jigjiga, isagoo isu tusaya mid wanaagsan oo xukuumaddiisu wanaag kula dhaqantay. adduuna xaalkaada Mustafa Cagjarkii shalay abuurka afka ka tuurayay ee amrayay in la xirxidho maatida iyo maxasta shacabka qowmiyadda Tigreey ee ku sugan deegaanka Soomaalida, isagoo nacaybsho gaar ah tusaya warbaahinta deegaanka, midda dalka iyo midda caalamkana ka aflagaadeynayay, ayaa maanta calaacal iyo baryootan kala duldhacay shacabka qowmiyadda Tigreey ee ku sugan magaalada Jigjiga. haddaba away Mustafa Cagjarkii shalay Tigree caayayay, bahdilayay, amrayay in la xirxidho, la takooro, la qaxiyo, hantidoodana xalaaleynayay. innagoo tusaalaha ugu yar u soo qaadan karaa kasakow xidhayga iyo barakicinta uu ku sameeyey qowmiyaddaas hoteelkii Tebi ee uu ku wareejiyey garabka ONLF ee uu xisbiyeystay. maxaa maanta keenay inuu shacabkii uu ku dhowaad 3 sano sida gaarka ah u rafaadinayay ee qowmiyadda Tigreey iyo beesha reer Cabdille uu maanta iyo shalay ku calaacalo? dhanka kale waxaa xusid mudan inuu Mustafa Cagjar maalinkii daraad ahayd isugu yeedhay oqaasha iyo waxgaradka beesha reer Cabdille, kaasoo uu ajandaha shirkiisu ahaa maaday iyo hurre cabdi adar ayaa kursiga igu haysta, haddii la xidhana waxaad dhahaysaan reer baa loo jeedaa, aniguna kursigan waan difaacan siday raggii iga horreeyeyba u difaacanayeen, waana ku duldhiman. markuu Mustafa akhriyay wuxuu akhrin karay oo idil oo oohin iyo calaacal ahaa, ayuu odayaashii ku yidhi, maxaa idinla quman oo aan maaday iyo hurre cabdi adar ku sameeya? hal oday baa gacanta taagay oo ku yidhi, adeerow kursigan rabbi baa ku keenay, inta rabbi kuu qorayna waa joogi, laakiin maalinka ay kaaga dhammaato cid kugu hayn karta ma jirto. intaasuntuu odaygaasi yidhi buu aayar iska fadhiistay. cid kale oo hadashayna ma jirin haba yaraatee, waana lagu soo kala dareeray. maantana wuxuu shirinayaa shacabkii qowmiyadda Tigreega ee uu sida xun u beegsanayay
8 bilood ee la soo dhaafay isagoo ku tilmaamayay inay argagaxsan yihiin bannaan tahay in maalkooda iyo hantidooda la xalaashado isla markaana ka qaxinayay caasimadda iyo guud ahaan deegaanka intooda badanna xidhxidhayay. haddaba Mustafa Cagjar wuxuu u egyahay nin wafaadaya oo meel la qaban waa ah oo gaaska iyo biyaha isku daraya, waxaana dabcay boolashii garashada xiskiina uu ka tegay isagoo maanta isla isdaaf raacay oo u beerlaxawso shacabka qoomiyadda Tigreega ka soo jeeda ee ku sugan caasimadda deegaanka. arrintan ayaa waxay ku tusaysaa inuu Mustafa Cagjar meeshii ugu dambeysay ay ka marayso oo uu xaarkiisa qabsanayo. ciidamada mayalka adag ee jamhadda TPLF ee loo yaqaano TDF ama xoogagga difaaca Tigreega ayaa dagaalo culus oo jiha walba ah ku qaaday deegaanadii ay ciidamada axmaaradu xoogga kaga qabsadeen Tigreega 8 bilood ee la soo dhaafay. ilo goobjoog ah ayaa noo sheegay in axmaaro saaka salaadii subax lagu waabarisay iyagoon wax ogaal ah qabin oon markaas ka warhaynin wax ku soo wajahan, weliba badi ciidamada axmaarada ee aaggaasi ay hurdeen waardi tiro yar oo cidhifyada dhufaysyada joogay mooyaane. gees kasta weeraro ayaa lagaga qaaday, waxayna ku baraarugeen xabad jiha walba kaga socota oo dhan ay u raacaan aysan jirin. khalkhal badan ayaana ku yimid ilaa ay iyaga dhexdoodii islaayeen, waxaana la sheegayaa in meydadkoodii ay bannaanada wadhan yihiin, firdhadkoodiina la sii eryanayo, isla markaana laga furtay goobo ay haysteen maxaabiis ciidan oo tiro badanna laga qaqabtay. weeraradan guuraha iyo guurabahalaynta ah ee ay Tigreegu saaka ku qaadeen axmaarada ayaa yimid kadib hadalkii xalay uu jeediyey hogaamiyaha jamhadda mayalka adag ee TPLF Dr. Debretsion uu TV-gooda ka sheegay ee ahaa inay TPLF axmaaro iyo Eritreaba baabi'in doonaan, siba axmaaro ay hal gobol oo keliya ka soo reebi doonaan oo labada gobol ee kale ay siin doonaan qoomiyadaha ay axmaaradu duleysatay ee gumaysiga axmaarada ku hoos nool. Dr. Debretsion wuxuu xalay ku hanjabay inaysan caleemo qoyan ku qabsanin deegaankooda iyo weliba xilligii ay dalka qabteenba ee ay dhamac iyo qori afkii ku qabsadeen, maantana sidii si la mid ah ay ugu qabsan doonaan ilaa iyo caasimadda dalka looga arrimiyo ee magaalada Addis Ababa.